ayadoo laga duulayo baaqii nabadeed ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ahaa in laga shaqeeyo nabadeynta bulshada Soomaaliyeed lagana saaro kala qoqobnaanta bulshada si looga guuleysto cid kasta ee diidan ama ka soo horjeeda nabadda iyo jiritaanka dowladnimada Soomaaliyeed ayaa taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamuud Maxamed Macalin General Koronto way weheliyaan saraakiil ka tirsan guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan ayaa kormeeray qaar ka mid ah suuqyada xoolaha ee ku yaala magaalada iyo difaacyada ciidanka xoogga dalka ee ku leeyahay duleedka magaalada Beledweyne gaar ahaan xaafadda Hurwadaag waxaana taliyaha iyo saraakiishiisu ay socday ku soo mareen qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee xaafadda Hurwadaag ee magaalada Beledweyne taliyaha iyo saraakiisha la socotay ayaa waxa qaar ka mid ah difaacyada ciidanka xoogga dalka ee ku leeyahay duleedka magaalada Beledweyne ku soo dhaweeyay abaanduulaha guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Korneyl Maxamed Cabdi Xasan iyo taliyihii hore ee ciidanka Wajilaan ee dhawaan ku soo biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxayna faahfaahin kooban ay ka siiyeen taliyaha howlaha qaran ee ciidanka u hayaan bulshada Soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka oo haddana qayb ay ku xareysan tahay lama galay guutada shanaad qaybta 27aad haddana waxa waaye taliyii qaybta ayaa nala joogo oo na soo booqday ciidamada meesha ay joogeen iyo aagaas oo dhan oo arkay taliyi waxa u baahanahay annaga dad 6 sano soo halgamayaan nahnay maadaama hadda waxa waaye fursadda oo maanta ugu wanaagsaneed oo nooga imaaday in ciidamadaas waxa waaye aad qaramayso oo qalabayso oo cadawga waxa waaye sidee u dhiiri galiyaan oo cadawga iskaga celiyaan adoo aad iyo aad u mahadsan intaas aan ka codsanaynaa cadawgana waan iska difaacaynaa wax badan hore waa u soo shaqeyn haddaana waa shaqeynaa insha Allah halkan waa magalay iyo aag macnaha mas'uuliyadda annaga ay naga saaran tahay ay kormeer noogu yimid annagoo u diyaar garoobayna macnaha waajibaadkana saaran iyo waxa tusaale iyo u nafaray taliyana halkaan ku soo dhaweynay marka waxaan leenahay kelmado oo tusaale iyo wixii uu waajibaad nafaray taliyaha inuu ku soo dhaweyno taliya ku soo dhawow guutada shanaad qaybta 27aad annagoo ku tusinayn difaacyada ciidamada ay kala joogaano una diyaar garoonay inaan iska celino cadawga shacabka gumaada ee muxaateen deegaanka aan ka xoreynay taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamuud Maxamed Macalin General Koronto ayaa faahfaahin kooban waxa uu ka bixiyay ujeedka kormeerkaasi ee goobaha ay tageen waxaana uu sheegay inuu si aad ugu faraxsan yahay ku soo biiritaanka ciidanka xoogga dalka ay ku soo biireen ciidamo markii hore u abaabulnaa qaab qabiil lana qaramayn doono ciidamadaasi maanta waxaan joognaa dhinaca kale oo Beledweyne idin aan ka bilaabayno dadkii inay isu yimaadaan kala qoqobnaanta laga baxo waxaan hadda soo marnay suuqyo xoolaha suuq ugu weyn ee xoolaha Beledweyne hal meel oo ah markii hore hadda qabiil walba iyo jifo walba suuq ay samaysatay si taa looga baxo dadkii u midoobaan ayaan u nimaanay meeshaan oo waajibaadkii madaxweynaha na faray oo kowda ahaa laba waajib ay hadda la soo qaatay ayaamaan dambe la wado ka koowaad oo ah dadkii in la nabadeeyo marka dadka la nabadeeyo waxaad helaysaa awood ah in cadawga aad ogaato meesha joogaan kadibna cadawga la dirto labadaas la istaa waajibaadka dal kale oo 10 waajib ay ahaayeen waajibaadka kale dib ayaan loo sheegi doonaa marka fulinayna ayaan agana sheegi doonaa daalay marka hadda midaan fulinayna midaan ka bilaabatay marka in aydan lagu xijiyay Beledweyne haddana ka socota gaalkacayo oo laba qayb ahayd maantana ah mataqaana marka hal gaalkacayo si aan waajibaadkaas u fulino ayaan saraakiisha fariinta la soo faray ugu sheegnay in mataqaana marka hore dadka la fiyoobeeyo calooshooda la soo calool barneeyo mataqaana ka bacdi la soo yimaado waajibaadka dagaalka si cadawga hal cadow aan leenahay cadawgaas aan iskaga qabano waa garan kartiin dadka duusan fiyoobeen ama calooshooda soo ficnaan wax waajib ay fulin karaan malaha cadawga ka faa'iideysanaya marka haddii aan laba dhinac u qaybsanahay waxay noqon doontaa in weligaas saas u qaybsanaan oo qaybna ay joogaan cadawga joogo qaybna uu joogo mataqaana maaragtay dawladda ay joogto saa daraadeed waxaan bilaabnaa maanta aan ka bilaabaynaa Beledweyne in qoraxsin saacada laga bilaabo aan mataqaana ciidan ka mid ah oo hore u deganaa oo beel ahaan u hubaysnaa haddana ciidan ku soo biireen ay bilaabeen xuduudda inay jebiyaan dadka la kala qabay ay jebiyaan dadkaasoo hadda ku xareysan xeerada ciidanka lama galay ay leeyihiin dhowr boqol oo ciidan ah taasna ay waajibaadkooda inay fulin doonto ku soo biireen ciidamada ayagana dib loo sharciyin doona daalleedmo sidoo kale taliyaha qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka General Koronto ayaa faahfaahin kooban waxa uu ka bixiyay xaaladda amni ee guud ahaan deegaanada Hirshabelle oo ay ka howlgalaan
ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka iyo howlgallada ay ka wadaan deegaanada Hirshabelle bulshadana ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka si loo xaqiijiyo ammaanka guud ahaan deegaanada Hirshabelle. xaaladda amni ee gobolka labada gobol waa isteedkii ugu weynaaday sid ballaaran weeye waxaan la wadaagaynaa dadka markii mataqaanaa cadawga mataqaanaa hal mid ay yeeshaan wuxuu noqon doonaa mataqaanaa in difaacaas uu noqdo mid laga badiyo uu noqon doonaa cadawga waxaan raadinaynaa marka hore calaalfuyoobi dadka inuu soo calaalfuyoobaan ay leeyihiin hal cadow inay ogaadaan intaas keliya muhiimadda koowaad ah. Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse, telefishinka caalamiga Somali News, Beledweyne.